khilaafkii muddo iska soo daba jiitamay isla markaasina ku aadanaa inay xilka qaadis ku sameeyaan gudoomiyaha hore dowladda hoose degmada Seylac xildhibaanada golaha deegaanka degmada Seylac si loo soo afjaro khilaafkii ka dhex taagnaa golaha deegaanka degmada Seylac ayaa waxaa maanta cod gacantaaga lagu doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen halka loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha dowladda hoose degmada Seylac saacadaha erayga sidoo kalena waxaa gudoomiye ku xigeen loo doortay Maxamuud Cigaal Xirgeeye imsa xildhibaan ayaa ogol in gudoomiyaha xilka laga qaado gacanta taaga xilka qaadistaasi sidaas ay ansax ku tahay koonumku 12 buu ahaa 12 kiisaas ku leeyahay saas uu ansax ku yahay waxaan ku xigsiinaynaa gudoomiyenimada yaa uma sharaxay imka yaa ogol in gudoomiyaha loo doorto sacad كوب لا صدق أفر شان لحد دول سنين سبعة سنين كوبيتون لبيت كوبيتون حلبان أيها فرتو تاجي قدومية نقطة سعد حلقة كلامه نقولنا يا دم شرح نقولنا لبيت ممكن نحلبان وي تاسنا ساس أسحقت هاي يا مشرحة وي إمسا فرتو تاجي أنت وقف قدومية كحجاج gudoomiye ku xigeenka oo loo doortay Maxamuud Cigaal isagana arintiisaas ku dhantahay 12 xildhibaanba fartay u taageen saas isaguna saxbay arintaas horta saas ku dhantahay waxaan laakiin idin sheegayaa hawl badan baa meesha ka dhacday wax badan baan eegaynaa in fara badan baa aynu saysan in fara badan soo ismeenanaysan in fara badan baynu soo taagnay in fara badan bay hawshan inagu qaadatay ma rabno inuu gobol kale wax ka dhacaan in lagu dagaalamo ma rabno inay hawl timaado ma rabno sidaa la ajligeed ilaa wasiirka amniga waa kii halkay noogu yimid talo badan baa laga yeeshay war badan baanu dirnay aad baa la isula eegay waxa markii dambe laga wadi waayay in iyadoo xaalado badan la eegayo oo dalka la eegayo oo gobolka la eegayo oo nabadgelyada la eegayo in codsiga xildhibaanada ay isku duuban yihiin la hirgeliyo la fariisiyo saasaan isku ognahay wasaaradda waxa isagu halkaasi mahadcelin ka soo jeediyay Saacad Daahir Ciige oo isagu loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha dowladda hoose degmada Seylac xildhibaanada golaha deegaanka maanta iyo codeeyay inaan noqdo meeyirkooga cusub aad baan ugu mahadcelinayaa runtii hadalka inta kale waxaan u dhigan doonaa maalinta xafladda xilwareejinta sidoo kale waxa isaguna halkaas xildhibaanada golaha deegaanka degmada Seylac u mahadceliyay Maxamuud Cigaal Xirgeeye oo loo doortay inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka dowladda hoose degmada Seylac waxa aan leenahay maanta inaan jawiga hore ka bedelo oo sidii hore loo shaqeynayay si ka gadisan aan u shaqeyno oo dadku ba raali ka wada yihiin oo bulshada iyo shacabka iyo intuba ay raali ka wada yihiin teeda kale ay degmada iyo gobolka kala go'naa sanadaha badan ama bilaha badan iyagana inay aad isku shaqeeyaan oo hay hawsha وعلي أحمد يري علي دقدلو TV-ga caalamiga